الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى خطبتي تنكور رسوحا كسو هذا الله إلا إسكدا أيو يدي لذا الدير إن لهين حسوس آخرة وعين حسوسين إن هلكن geeridii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo taasi ay ka turjumi doonto diyaargarowgeenna iyo inaan tan lagu waarayn faa'iidooyinka ku jira xagga dambe aynu ka xus insha allahu iyo cibarkii iyo waxyaabaha casharada laga qaadanayo qodobo ku saabsan geeridaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macluumaadka ku xeeran haddaynu qaar ka soo qaadanno bukhaari waxaa saxiixiisa ku sugan inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a asxaabta khudbad u akhriyay isagoo ku tababaraya inay aakhiro u diyaargaroobaan naftiisana tusaale uga dhigaya muu caddaynina wuxuu uhi dad yahow ilaahay adduunyada iyo aakhiro wuxuu kala doorgeliyey labadaa kala dooransiiyey addoomaha ka mid a addoonkaa isaga ahi aakhiruu doortay أبو بكر الصديق بقى الميي حديث كأصحابي قوريني يا أبي سعيد وحول والله يا أبو بكر محول له يا أبو بكر هديد ده إلهي وآخرة يا الدنيا ذا كلا دور هنسيي أدون الضماء كم آخرة ودورت لكن ونجا أركتب ده رايا وحجرنا يا أدون كل نبي وشيء يا إنه نبي جاي صلى الله عليه وسلم والنبي قال مركي الدنيا آخرة لدور قلي آخرة دورت إلهي يكتس وحي الله وناجر أهل العلم علماء واحد حسان نبي إنه إلهي أكل بيه صلى الله عليه وسلم نبي النمدي يا الشهيد نمدي ترى واحد يودل الشدان حديث كي حسين النبي قال السنية صلى الله عليه وسلم لمن كيهود أبو مال قلت ماشي يدقنانا خيبر لوراني ويسنيين رسولك صلى الله عليه وسلم نفكي أرجع هاي usoo sameeyeen ay usoo shiileen sunbay uga dareen uu iska tufay laakiin cunaha ayay ka waxyeelaysay xaaskiisa Caaisha la hadlayo wuxuu lahaa suntii maalinta ay soo gaadhay hadda ay kala goysay xididka garka wadnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiga uu sii dhimanayay ayaa waxa ku bilaabmay madax xanuun aad u badan oo dhibkiisu u badan yahay oo sidaa uu sheegay suntaasi ay sabab u ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xiisaynayay in guriga Caaisha uu joogo intaa uu bukaanka yahay maadaama ay ahayd qof aad iyo aad ugu heelan nabiga calayhi salaatu wasalaam hawshaan aad u qaban karta daayaroo ka xoog badan dumarka kale wuxuu odhan jiray halkeen joogaa berito wala wareejinaya markaa isagoo cadaalad samaynta dumarku aanay waajibba ku ahayn haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu cadaalad samayn jiray dumarkiisa markaa isagoo bukaa kolba xaafad la geynaya aroorta xagee la geynaya guriga Caaisha doonaya markay dumarku taa ogaadeenna way fasaxeen oo waxay yidhaahdeen halkaa doontaad iska day kartaa Caaisha Allah ka raali noqdo iyadoo ka waramaysa geerida nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo siday u kululayd ama sakaraadkiisu u adkaa waxay leedahay markaa sakaraadku uu ku yimi wuxuu codsaday in la soo hordhigo biyaha labada gacmood buu gelinayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka kulaylku uu ku batay wejiguu ku masaxayaa labada gacmood rasuulku sala allahu calayhi wasalam وحلا لا إله إلا الله إن للموت سكرات توحيد كمركو كل واقع وحلا هي كيرد وحلا هذا سكرات مركا سوق عمها سدا وجهك أو مرينا يا مركلا كلك حمد أي كسي بدأت وحورنا يهريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن وحيقول شبتان تدبق قربت أو بيئة أو أن وحبل قشوين إبوح بوحة
عائشة وحلا ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى قف نبي محمد كحنوني حمد بطنا marka uu sii dhimanayay cidda ugu xanuuniya xumad badnayd buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam ag joogto iyaduna ka ag dhoway inantiisii Faatima radiyallahu anha oo iyaduna arkaysa xaaladda nabiga aabaheedna aad u jeclayd caruurtiisiina kaligeed kala joogto ugu dambaysayba kolkaasay u naxaysaa waxay leedahay waa kurba abaah maxaa aabahay kurba iyo dhibaato haysa iyo xanuun nabiguna wuxuu leeyahay laysa calaa abiki karbun bacda alyawm inuu dhimanayo uu sheegaya aanu ku qarinayn marka wuxuu leeyahay aabaha maanta kadib kurba iyo xanuun soo mari maayo leannahu maqtuucu ljanna jannada ayaa loo go'aamiyay ambiyada ilaahayna uguba bushaaray nabigo maanta wixii ka dambeeya uu ka nasanaya kulayl iyo kurbada adduunyada saasuu ku leeyahay inantiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyada oo haddana xaaladda adagu marayo maca dalika yaxmil hama dacwa haddana wuxuu xambaarsan yahay hamigii dacwadda hawshiisa u muhiimsan adduunya la dhaqiyo dad kale baan ahayna dacwadda hadiya dadka ilaahay la gaarsiiyo xaaladda kulaylka badan mid inaga mid ah dee wuxuu odhanaya la iska garanayo dhakhtarigeeya kan yeela halkaas ay xanuunaysa cabashadii cataab ku badan lahaa isagu hawshiisii u muhiimsanayd ayuu wali fiirinaya isha ku hayaa wuxuu leeyahay as-salaata wamaa malakat aymaanukum war salaada ilaaliya iyo waxa aad mas'uulka ka tihiin ee gacmihiinu ay milkiyeen haddii ay addoomaha iyo haddii ay xoolaha nool ammaanada ilaaliya صلاتنا إلالية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إلهي هن عضلوا يهود إيكوا نصارى ده كريستنك نبي ذي دنتي حباله ذي بمساجد تكدل سمية واردين كتاها السمينين نبي ولارين تاواندين ديديا ودرداران نبي قدم بي عليه الصلاة والسلام عائشة ما waxay leedahay markii hadaba geeridu ay ku timid oo sii dhimanay nabigu ayuu miyir door soomay markaa wuxuu eegay xagga sare ee saqafka horena wuxuu noogu sheegay in uu ilaahay ambiyadiisa door galiyay adduunyadii aakhiro maadaama ay ambiyadu ka cilmi badan ummadda kale ka aqli badan inay ka geesisayn ilaahay uu usii sheegaa inay dhimanayaan hadda dhimanaysaa miyaad ka dhaqaajin adduunka mise adduunka laga daayaa waa loo sheegayaa waqtigaasaan ayaa waxa loo bandhigaa meesha uu jannada ka degayana jannadii baa la tusayaa marka waxaan gartay tir xaaladii uu noo sii sheegay inay tahay kolkaasaan idan laa yakhtaaruna wallahi haddaba na dooran maayo kol haddii loo sheegay aakhiruu dooranaya waxaa erayadii ugu dambeeyey nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa allahuma اغfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa allahuma arafiiqi alaclaa ilaahay ow igu dar intii aad u nicmayseed u barwaaqaysay nebiyada kuwa runta badan shuhadada saalixiinta cid lala rafiiqo la raacana kuwaasaa u wanaagsan ilaahu ii dhaaf oo ii naxariiso oo jamaca fiicane sare i raaci فكانت آخر كلمة تكلم بها حتى قبض ومالت يده شريفة أرجع سأقول قدام بين نبيك ومضنا وكتاب براين توحيد قدام بيو كعنتي سيو كرو تاجا يهاس صار عضي مركا وحن كرتين ولنتي سيدي بي مركا وحكون انتي لا بين حاقنتي وذاقنتي لا بتيدا كركا يجيو حندورته انت كذا حيسي سوى كتير سنة سيدا وهيو geesinimada Caaisha darkaysa radiyallahu anha iyo wixii uu nabigu ka filayay ka soo baxday kaalintii asxaabtu aabaheedu ku jiraabay matalaysa iyada xil qaaday nabiga xanaanayntiisii iyo hayntiisii ilaa uu gacanteeda ku dhimanay waxa uu leeyahay xaafid ibn kathiir
وعلمك التاريخ دي السيرة هذا وقوى الرماه قريد النبي وحي عليه الصلاة والسلام سندي كوبية طبنات لبية طبنكي بشالة إلى الربيع الثاني مال سنينة كمال كاي سنينتا لما آسن مالك ثلاثنا لما آسن هبينك أربعة لآسي عند المشهور عند الجمهور سيدا علماء أيوب بديهين وحسب لو كو إيمان النبي قمتنا عليه الصلاة والسلام تركيس الشريف كود إلهي با إلهي وقبري قاعد عني ميسو وحينوجد بالله مركا الدروس والعبر المستفادة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أرجنا جيري داس يلي مشهد النبي قصي كوبان أي نوضل مرني حين كفى إذا سنينا مركا كوبان وحين كفى إذا سنينا أن الموت سبيل كل حي geeridu inay tahay noole kasta wadadu maraya maha aadamaha qura wax kastoona fi ku jirta uu dhimanaya taasina waa mid lama huraan marka iskaga talagal gaaladuna waxay markii ay nabiga yiraahdeen uu ina dhaafiyo uu dhiman doonaa ilaahay baa u jawaabay wuxuu innaka mayitun wa innahum mayitun adna waa dhimanayana way dhiman doonaa maxay dhimashadaada ka igsanaya nayaga noolaanayo joogaya marka taa macnaheedu waxa weey la budda min al-isticdaad li yawm ar-rahiil maalinka safarka aynu iskaga talagalno in alaabta iska sii urursano kulluna ya'lam dhamaanteen waxaynu ognahay inuu iman doono soo socdo maalin kabahaagana la gashanayo dharkaagana la wareegayo la qaybsanayo mafaatiixdaada iyo arrimaha ku khaaska ana dad kala qaybsan doono kala qaadan doono duuya iyo dad kalena hadalkeeda badaa waxa la wixii khusuusiyaadkaaga ahaa ku gaarka ahaa baa la qaadan doonaa la wareegi doonaa inuu dayaasheena kamid oo iska aqli badan baa dadkan wax qorqoraa isagoo nool bay yiraahdeen wuu dhintay hebel allah uu naxariisto hebel tacsidiisa soo qoreen markaas la hebelow sidaas la yidhi ma nooshahay runtood weeyaan waa runtood laakiin waxay ku yar kharibeen way soo qadimeen been bay sheegaane laakiin wallahu baabur inaan socon doona dhiman doono waxa la baado inuu ka faa'iideysanaynaa zuhduhu sallallahu alayhi wasallam fi alhayati dunya nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam isagoo wuxuu inaga duwanaa adduunyadu meel iska dhigay marka wax dhaxalaba kama teginba waxa uu ka tagay hubkii uu ku dagaalamayay iyo dhul yaroo waqaf noqday iyo gaadiidkii uu fuushanaa gaadiidkii iyo hubkii uu ku dagaalamayay in yaroo dhulaha waqaf noqotay marka si aan ugu hawshoonina ugu farbaxa diinta ilaahay iyo dacwada isagu saas u doortay marka suhdu fi dunya inuu qofku adduunyada ku dhex saahidaa qiimaha ay leedahay ayaa nabigu tusaalay inoogu yahay sallallahu alayhi wasallam qisadu waxa shanaadayna tusinaysaa makrul yahuud wa qatluhum lil anbiyaa wal awliyaa yahuuda nimanka la yiraahdo cadaawadooda quraanka cadeeyay inay anbiyada qaybna beeniyeen qaybna dileen qof kastoo wanaagsan oo ilaahay ka amar qaadanayo adoon dhaba waa yahuudi waa cadow buu yahay marka dad aragta cid yahuudi la saaxiiba ama u jiibinaysa macnaheedu waxa weeyaan dad ka soo horjeeda diinta ilaahay iyo dadka ilaahay وانا تا أدركيس أو أنبياء دي كذا تبي لاين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يسجنا سحر بي كديان سنة وي كديان قعنا إني كدلا ويس كديان سمو قطيع سقر صامبا مركا خطرته ده إن المرنا ولا آمنين بقصده تاجن تتصالوت وحي قصده إنه موتشنا يسا أن موته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب لما شهد النبي يقول لباتو إنكي هو وينا يددك مسلمين تاسوق قاري انت أدوية دا كنا ولاي وي اشتاقونا تاسوط إنه شاقوا وحول إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه به فإنها من أعظم المصائب مذي دين كيدين كم إذا هدي لباتا كنت معضو نفتيسة أهل كيسة أصحاب تيسة أمد ديسة هاي سكو قنعية لما شضي دي مصيبة أوين باي هيدي هاي هذا الدين نبي جيبا ودنت مركا قفك ilmihi soo barooranaya ama walaalkii ama aabihi marka tiraadeen nabi maxamed badhimay miyuu ka wanaagsanaa kaagu waa inuu sabir ku qaataa sidaasay dareensanayeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim Anas ibn Malik wuxuu leeyahay khaadimkii nabiga markii uu rasuulku Madiina yimi sallallahu alayhi wasallam hijrada sanadii koobaad adaa kullu shay wax kasta uu iftiimay isbedel baa nagu yimi
markii uu maalintaa u dhintayna adlama kullu shay xataa ankarna quluubana wax waliba markuu dhintay wuu madoobaaday ilaa annagu aanu qalbigayagii garan weyno annaga laftigayga aanu isaf garan weynay marka halkaa waxaad ka arkaysaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim qiimaha iyo fadliga iyo faa'iidada nabiga yaqaaneen sala allahu calayhi wasalam waxa lixaad oo qisada aynu ka faa'iidaysanaynaa akhdu tarakati wujuubu akhdi tarakati nabiy sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed inaynu qaadano dhaxalkiis isagii dhimay laakiin dhaxal buu ka tegey halkuu tegay iyo jannada ina gaadhsiin kara haddaynu cuskano waxaan idinka tegay buuhi kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaa qabsataana lumi maysaan ereygaasuu isticmaalaya abi hureyre intuu suuqa madiine tegay buu ganacsatadii wax kala iibsanaysay la hadlo wuxuu ihi ma halkanaad joogtaan dhaxalkii nebigana waa la qaybsanayaa masjidkaa lagu qaybsanayaa markay yimaadeenna wuxuu ihi dee cuud iyo xoola idinmaan sheegaynina waa cilmiga ah loo fadhiyo xalqadahaasa ka qayb gala xooluhunbaa ku mashquulsantiina qisada waxay noo sheegaysaa tawxiidku qiimaha uu leeyahay in qofka ama ummadda caqiidadoodu ay saxan tahay oo cibaadadoodu ay saxan tahay haddii caqiidada iyo cibaadadu dadka ka xumaadaan dal kasta iyo dad kasta wax faa'iido u yeelanayaa ma jiro aayahoodii wuu dhintay waana ta uu ku mitidaya nebigu salaada ilaaliya buu leeyahay tawxiidkana ilaaliyo sida nimankaasi diintii ay uga leexdeen ay u gaaloobeen yuhuuddi iyo nasaaradu caqiidadu way idinka xumaanina qubuur caabud ha noqonina idan markaa sahayda keliya halkan lagala tegayaa waa caqiido iyo cibaado wanaagsan arrimaha toddobada meelahaasa ayaa mustafaadaadka aynu qisadan ka qaadan karaynaa iyo markaynu soo ururino way iska shaqaysanaynaa adduunyada waa dadaalaynaa laakiin safar baa soo socda lama filaana aan idhaahda ee aan la ogeyn goortuu iman doono ogeysiisna aan lahayn soo noqodna aan lahayn safarka sidaas maxaa kaala gudban in alaabtu iskaga kaa xidhnaato istiraatiijiyadda doonto lahaw waxaad doonto qabso dowlad iyo dal waxaad doonayso dhis laakiin dardaarankaaguna ha kuu qornaado dayntana iska bixi dulmigana iska reeb iskana diyaargarow ilaan iminkaa lagu soo heli karaa oo lagu qaban karaa taasaa inala gudban dhammaanteed allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.